السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لذي ذقالك سود وذا أدونك تعالى سجوجو I hope you are doing good حبل بدن بيسوي دي داركا ما أردت أكو شيء مسات النعيمة حقيقة سو إبستي and that's why I'm here and I'm gonna answer for you guys so سود وذا and داركا أنكو شيء مساتو they are from different places my gym لكن there is محل ديشري company and that company absolutely I fall in love with them والله بين ما يدشجوا watch على so which company is وحالة ده ما أنتوا يجي discipline بالده نين مسلمين بأسكالة and they are based on UK and it's absolutely amazing why كده البداية how many I think waxaan ka dalbaday 4 shay ingiriiska waaye markay ku soo dhilay fargareynayaan waxa waaye tax baa laga qaadaya laakiin I don't care the tax I just want to waxaan markaan tarengareynaya I want to feel good so that's why I order 4 pieces and then 4 pieces ki waxay ka dhamaadeen meeshii la oran jiray maxaa la dhahaa in laayaselka ama meeshii calashan way iga hor dhamaadeen so waxay ii soo direen waxa iga dhiman saddex shay baa iga dhiman laakiin wuxuu igu yiri ninka waxbaan u qoray wuxuu igu yiri waan ku soo dirayaa don't worry buu igu yiri okay means like alaabadii aan dalbaday oo dhan ma aysan iimaan laakiin alaabo yar baa ii timi soo alaabada yar waa idin tusaya waa saddex shay waxa ii yimi one hoodies oo blue ah aan dalbaday maadaama alaabadu ay ii timi late oo ma aragtay alaabadii kale aan dalbaday wali aan iimanin like apologize for your surwal for you so let's see guys wanna amazing why bahalkan you cannot imagine oh my god let's open oh dharkan waxa way dharka gymka oo dadka muslimiinta loogu talagalay waay so this is the one he give me for free easy kan waa surwal guys look oh my goodness guys it's absolutely amazing magacoodana waxa la dhahaa discipline yeah I don't know if you can see guys I don't know why you cannot see but it's called discipline guys and it's absolutely amazing so he gave me this surwal for free and I really appreciate it thank you okay next item guys magacoodana discipline baa la dhahaa guys they are based on UK but they make like worldwide shipping bay u sameeyaan okay so let's see and this is the one I ordered for myself oo aan bilash laysiinin and it's both surwaalka iyo kan waa medium because now I use medium guys so kana waa hoodie that is the hoodie guys hoodie waaye gacmo dheer waaye halkan wuxuu ka leeyahay meel yaro ma aragtay markaad jimicsanayso dabadaada ma la arkaayo meel kasta ma la arkaayo this is like mashallah asturiya awra ka dhacday and the other one I order because saddex xabo oo shirt oo la dhahayo blouse oo la dhahayo invisible baa dalbaday but saddexdii kale way iga maqan yihiin so yeah this one is gray guys waa gray waana medium waa wasac so if you are like hada weyn tahay wasac alashan hadii aad you don't have to size up alashan waxaan ka wadaa you don't have to size up inaad hadad medium qaato inaad large dalbato uma baahnid because it's absolutely amazing look and cooling effect bay leeyihiin they have the tom hole kameshi oo la galinayo farta so what hasa and you know what I really think I have to try on it. So let me try guys, then you will see what I'm talking about. Okay? Guys, waxaan iska bedelay shaatigii baan idin xidhay. Waa dheer yahay saa u jeedin surwaal madow baa ii xidhan. Wuu dheer yahay. And then what you can do is like what siib garanaysaa all the way you can siib it. And this is a medium. So if you don't use medium, you don't have to size up uma baahnid you don't have to size up wuxuu ku fiican yahay saa marka u forforsanayso saa markaad leedahay markaad weight-ka saa u qaadayso waa maro calashan aan kugu dheganayn oo ka degaysa weeyaan this is absolutely an amazing way mucheda and then it has a little slide ka halkaas ku yaala so waxay ibiyaan maca large XXL xataa way ibiyaan so you don't need it
mid kale inaad. I absolutely love it. It's amazing. What do you think, guys? Oh my goodness, guys. This one is the blue one. Surwaalkii la igu soo darayna waa kaas. Surwaalkaas baa la igu soo daray. You see surwaalka suu yahay. It's absolutely amazing. So, funaanad ma u baahnid koofiyad inaad xidhato. Markaad gymka aadayso khimaar xataa ma u baahnid inaad xidhato. Look at this, guys. Kan wuxuu sameynayaa it's like wuxuu haystaa maradan oo habla maaragtay raba asturaad fara badan leh wuxuu ku asturayaa here like adaa soo jiida mooyaan. And then the good thing is waa hagooganaysaa you do like that. Look at this, guys. Look at this. Ma dhacdhacaayo. And then haddii hablaha khimaarka xidha aad tihiin bin yiriisa halkaasaa ugu qabanay. You can do like that and nobody knows what kaaga hoose dharkaaga. Look at that. Mara yar lee ka xiranay halkaa. And then you are good to go with the gym. And then they have the biggest bucket in the world. Laba baakadood, laba jeeb oo waaweyn way haystaan. They have that bucket, guys. And then you are good to go. You are good to go for the training. No excuse. Don't say, they're hasty. You can look at that, guys. It's called discipline. Go to the gym. Are you ready for the squat? Okay, and then that's why I'm telling you this is another level. So let's see. And they have the thumb hole, like mesha gelinaso. You see? You say what is going on, so it's not goes up and down and makadeci. So gacmahaga ma la arkay. So let's see. It's like you do. Okay? So look at this. When I'm squatting, nobody can see me like futadayda. Oof. Yeah. Let's go. Nobody wax iga arko male. And if I want to take weight and do like this, marada iyadaas soo qabanayso, iyadaas celinayso, iyadaas haraysa. And then you can do like this. You can waxaad arkaysaa gabar gymka joogta oo mara dhexda ku xiranaysa. Why are you doing this, guys? Just to get order yours, guys. Aniga they don't ima ay sameeyeen wax la dhaho discount. I didn't get any discount. I didn't get anything. I just get free for this one because all my thing comes late, guys. So that's why lacag ma idin kaga sasabanay ma idin lihi lacag ban ku qaata. But laakiin Soomaalida waan la jeclahay wax kasta. So when you see me wearing these clothes, you know where it's come from. It comes from discipline. Okay? Bye. If you have any question, way so qori kartaa. Assalamu alaikum. Bye.